baro multimeter isticmaalkiisa. waxaa idin soo diyaari Somtronics. casharkan wuxuu la socdaa casharo kale oon kaga hadli doono aaladaha loo isticmaalo electricity-ga ama electronic-ga lagu cabiro. casharkan dad badan ayaa igu codsaday, marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan. halkan tusaale waxaan ku hayaa 3 multimeter oo kulligood ku base garaysan waxa la yiraahdo digital. kulligood waxay leeyihiin knob oo aad ka wareejinayso si aad u cabirto hadba waxa adiga aad rabto inaad cabirto. waxay leeyihiin oo kale meel laga geliyo fiilada aad wax ku cabirayso. midda madow waxaa usually loo yaqaanaa common, midda redka ahna waxaa loo yaqaanaa positive, ama markaa cabirayso ohms ama amps aad isticmaalayso ayaa la geeyaa. noocan oo asagana fulug ah sidoo kale wuxuu leeyahay nom ayuu leeyahay. waxay u kala duwan yihiin labadan kana ka qaalisan wax yar, wuxuu kala cabirkooda ayaa xoogaa yar wax yar kala saxsan. waxaa kaloo jira nooc kale oo asagana leh clamp oo asagana aad u isticmaali karto sidaas oo kale aad ku cabirto voltage ama current waxa cabirayso. kan waxa uu kaga duwan yahay wuxuu leeyahay clamp ayuu leeyahay. markaa fiirisano cabirkiisa ilaa wuxuu cabiri karaa ilaa 100 amp ayuu cabiri karaa markii loo fiiriyo kuwan oo ayaga cabiri karo ilaa 10 amp ah. markaa rabto inaad cabirto koronto quwad badan, clamp-ka ayaa isticmaalaysa oo markaa fiiladii ayaad gelinaysa, markaa taa wuxuu ku cabirayaa korontadii aad rabto inaad cabirto. kan waxaa isticmaalo dadka ka shaqeeyo power system-ka oo electricianska ayaa isticmaala maadaama ay cabiri karto ilaa koronto zaa'id ah adigoon u baahnayn inaad taabato si aadan noloshaada aadan khatar u gelin. fadlan multimeterka markaa gadato waxaa la socdo buug yar ayaa la socdo ama warqad yar oo la yiraahdo specification, taa oo kuu sheegayso sida multimeterka oo u shaqeeyo iyo waxyaalaha aad iska ilaalin karto si multimeterkaas uu kuugu shaqeeyo si wanaagsan. tan kalena adiga xataa noloshaada aadan khatar u gelin haddaad u isticmaasho si qalada. marka waxaad fiirisaa specificationka waa important inaad akhriso. sida hore usoo sheegay specificationka oo multimeterka important waa inaad fahmi karto. laba shay ayaa important aan rabo halkan inaan idinku tuso. waxay tahay wax la yiraahdo maximum voltage. halkan wuxuu ku tusaaya tusaalahan 600. marka taa waxay tahay inta uu xamili karo multimeterkaas. wixii 600 oo volt ka badan uma aad isticmaali kartid oo waxay gelaysaa khatar ayaa gelaysaa oo yacni digniin ayuu ku siinayaa. masalan wuxuu ku leeyahay multimeterkan do not measure voltage higher than 600. ha cabirin voltage ka badan 600 oo volt. sababtu waxay tahay waxaa dhici karo electric shock ina gasho ama damage uu gaaro multimeterka. markaa la soco taas. su-aasha marka waxay tahay maxaad u isticmaali kartaa multimeterka. multimeterada inta badan waxaa loo isticmaalaa inta halkan aan kusoo sheegi doono. tan ugu horeysa waxay tahay waxaa loo isticmaalaa waxa la yiraahdo DC direct current voltage, waan ka hadli doonaa ayada. waxaa kaloo loo isticmaalaa AC alternate current, ayadana waa loo isticmaalaa oo yacni waxaa lagu cabiri karaa voltagekii iyo korontadii. waxaa kaloo u isticmaali kartaa inaad ku cabirto waxa la yiraahdo continuity testing, taas oo ah markii fiilo ay go'do ama fiilo ay short u jiro asagana waa loo isticmaali karaa. waxaa kaloo loo isticmaalaa resistance test ama waxa caabiyaha aan ku magacaabno ayaa cabirkiisa ayaa asagana loo isticmaalaa oo resistance ama resistorka. waxaa kaloo loo isticmaalaa diode-kana waa loo isticmaalaa oo asagana faa'iidadaas ayay u leedahay. waxaa kaloo loo isticmaalaa capacitorka ama capacitance testna waa loo isticmaalaa. haddaan rabo inaan cabiro DC voltage, noobka waxaan geynayaa meesha ay ku taalo V iyo calaamada dheer oo dhibcaha leh. marka waxaan geynayaa voltage. waxaa important ah labada fiilo midda madowga ah oo commonka loo yaqaano ama groundka ama negativeka waxaan gelinayaa meesha commonka. meesha waxaan cabirayo fiilada guduudna waxaan gelinayaa haddaan voltage cabirayo waxaan geynayaa voltage ohms milliamp iyo microamp waxay gelaysaa halkaas. marka commonkii iyo voltagekii labadiiba waa haystaa. halka waxaan ku haystaa laba battery oo DC ah. marka waxaan rabaa inaan ogaado midda fiican iyo midda xun. midda ugu horeyso markaan soo qaato haddaan rabo inaan iftiinka LCD-ga aan si fiican u fiicneeyo ama iftiyo waxaan riixayaa buttonkaas markaasaan u arko voltageka. waxaan gelinayaa negativeka oo batteriga oo ah minuska waxaan ku xirayaa hoos
meesha pluskana waxaan ku xirayaa kor marka volt baterigan wuxuu cabiray 1.5 volts 1.598 volts marka bateriga waa uu fiican yahay haddaan baterigan aan soo qaato sidoo kale aan sameeyo oon cabiro waxaan ogaanaa baterigan inuu qiimihiisu quwadiisu ay tahay 0.397 volts marka baterigaas waxaa laga rabay inuu ahaado 1.5 waa bateri xun marka ka qashinka ayaan ku daraya marka saas ayaa loo cabiraa DC-ga markaa cabirayso bateri halka waxaan ku hayaa bateri 12 volts ah oo aan u isticmaali jiray solar panelka aan u isticmaali jiray marka bateriga sidaan hore usoo sheegnay waxa uu ku shaqeeyaa DC marka asaga ayaan hadda aan cabiri doonaa LCD-ga aan rabo inaan ifiyo intaan cabirin marka bateriga wuxuu leeyahay plus ayuu leeyahay pluska waxaa lagu gartaa calaamadda pluska ahaa waxaana kaloo also lagu gartaa red ayaa ku sawiran ama red ayuu leeyahay sida ujeeda halkan red ayuu leeyahay marka taa waxaan ku qabanayaa pluska kana waxaan ku qabanayaa negative-ka marka bateriga wuxuu ii cabiray 12.91 volts waana wixii loogu talagalay baterigaas quwadiisa multimeterka waxaa kaloo loo isticmaalaa waxa la yiraahdo AC voltage test ama alternate current voltage test sidaa la socotaana alternate current waa korontada guryaheena noo timaado inta aanan cabirin AC voltageka waxyar waxaan ka hadlayaa outletka ama meesha korontada ay ka imaanayso guriga ay kasoo gelayso fiiladan waa fiila aan kasoo jiiday guriga derbigiisa isku wada mid ayay u wada shaqeeyaan ibn xataa markii aad tagto Soomaaliya ama Yurub aad tagto waxa uun kaliya kala duwan waxay tahay godadka siday u egyihiin kulligood waxay leeyihiin wax la yiraahdo hat ayay leeyihiin hatka waa 120ka AC ama North America Soomaaliyana waxaa la dhihi karaa ama wadamada Carabta 220 ayaa waxaa la dhihi karaa hatka godkan kale oo weyn waxaa loo yaqaanaa neutral waa dhexdhexaad waa meesha waxaad u baahan tahay marka labadooda inaad isticmaasho si aad u cabirto godkan kale waxaa loo yaqaanaa ground oo waxa uu ku xiran yahay guriga dhulka ayaa waxaa laga qodaa god fiila ayaa la geeyaa fiiladaas ayaa waxaa lagu rakibaa gurigoo dhan meelaha groundka si oo looga ilaaliyo markii hilaac uu dhaco inuusan hilaacaas guriga uusan soo gelin oo dhibaato keenin markaan cabirayno waxaa important ah inaad fahmi karto fiilada aad wax ku cabirayso in aysan meel ka fiiqnayn si aysan korontada marka aad geliso ee adiga aysan kuu qaban tan kale waxaa iska ilaalisaa afka inaad ka taabato marka aad godka gelinayso oo fiilada gadaal ka qabo markaan cabirayno voltmeterka ammeterka ama voltageka aan cabirayno waxaan geenaynaa voltageka AC-ga ayaan geenaynaa markaan geeno waxaan sameynaynaa redka waxa uu ku rakimaya meesha voltageka ayuu ku rakimaya blackana wuxuu ku rakimaya meesha commonka ah marka waxaan sameynaynaa hatka waxaan gelinayaa midka guduudan midka madowna waxaan gelinaynaa neutralka ayaan gelinaynaa sida ujeedaan waxaan cabirnay 121.9 volts 121 volts ayaan cabirnay taasna waxa waaye cabirka laga rabo inay cabirto voltageka North America AC-geeda waxaa kaloo loo isticmaali karaa multimeterka inay cabirto DC ama AC direct current ama alternate current markaad cabirayso korontada waxaa geenaysaa ampere ampereka ayaa wuxuu yeelan karaa ama DC ama AC marka aad cabirayso AC calaamadda guduuda waxay kuu sheegaysaa inaad bedesho switchka aad bedesho oo selectiga buttonkan aad riixdo marka buttonka riixdo halka wuxuu isu bedelayaa AC ayuu isu bedelaa marka waxaa ogaanaysaa inaad AC cabirayso marka kalena waxaa u dhaafaysaa DC haddaad DC cabirayso DC-na waxaa ka mid ah bateriga oo kalaa ka mid ah waxaa kaloo important ah haddii aadan aqoon inta korontada ay tahay aad cabirayso waxaad gelisaa 10 amp meesha ayaa waxaad gelinaysaa fiilada guduudka ah sideedaba waxaa safe ah haddaadan la socon korontada intay dhan tahay in aad cabirto 10 amp la soco wixii 10 amp ka badan multimeterka fuse ayuu leeyahay gudihiisa waa uu gubanaya marka make sure korontada cabirayso inaysan ka badnayn 10 amp marka fiilada 10 amp-ka ah waxay serious la noqonaysaa bateriga markii AC ama DC aad cabirayso
multimeterka waa inuu serious la noqdaa circuitkaaga. Seriousna hadda koran soo sharaxnay. Marka 10 ampka fiilada ka imaanaysa waxay ku xirmaysaa bateriga balaaskiisa. Fiilada commonka ama groundkaana waxay ku xirmaysaa wax hadba aad test garaynayso ama nal ama radio waxay tahayba dhinaca kale ayay kaga xirmaysaa. Nalka tusaale halkan nalka lugtiisana waxay ku xirmaysaa bateriga minuskiisa. Marka waxaa dhacayso korontada ka tagto bateriga waxa ay maraysaa fiilada guduudan, marka waxay kasoo baxaysaa commonka, marka waxay ku laabanaysaa circuitka ayay ku laabanaysaa. Nalkiina waa uu daarmayaa, mitirkiina wuxuu cabirayaa korontada dhexdiisa martay. Tusaale ku xiga ayaa idin tusaya iyadoo practice ah. Sidii picture-ka hore ay ku aragtaan, tusaalahan wuxuu na tusayaa laba bateri, nal iyo switch. Marka waxaa dhacayso korontada ka tagto bateriga waxay maraysaa nalka waa ifaya, switchka markii la daaro circuitka waxay samaynaysaa korontadii ayaa dhaqdhaqaaqaysa. Markaan xirno sida u jeedaan nalkii waa uu daarmay. Waxaan u baahanahay inaan korontada cabirno. Marka korontada waxaan ka cabiraynaa halkaa waxaan ku xiraynaa commonkii oo meterka, intana waxaan ku xiraynaa pluska ayaan ku xiraynaa. Haddii aan rabno inaan cabirno korontada marayso circuitka, waxaan u baahanahay meterka inuu noqdo serious, inuu la noqdo circuitkaas oo yacni inuu la taxmo sida nalka hadda ula taxan yahay bateriga inuu ula taxmo. Marka waxaan u baahanahay meterka in aan geeno amps inaan geeno. Waxaan kaloo u baahanahay fiilada guduuda ah inaan geeno halkaas meesha ampka inaan geeno. Marka hadda meterka wuxuu noo cabiri doonaa amps ayuu cabiri doonaa. Waxaan kaloo sameynaa LCD-ga ayaan ifinaynaa si aan u aragno nambaradii. Waxaan u baahanahay maadaama circuitka uu bateriga uu ku xirmaayo nalka ku xirmaayo ee markaa korontada marayso, waxaan u baahanahay inaan korontadii aan meesha aan ka jaro si ay u marto meterka u marto. Marka waxaan sameynayaa waa ka furayaa. Waxaan kaloo sameynayaa pluska oo meterka waxaan ku xirayaa bateriga pluskiisa, minuskana waxaan ku xirayaa nalka dhinaciisa sida aan sawirka idinku tusay. Sidaa u jeedaan korontadii meesha aan ka cabirno waxay noqotay 0.275 amps ayay noqotay. Marka taas hadday aan ka furo nalka aan ka qaado korontada aan ka qaado meterka aan ka qaado korontadii waa istaagaysaa. Haddaan meterkii aan ku xiro korontadii way soconaysaa. Marka sidaa ayaa loo cabiraa korontada. Waxaa important ah inay serious uu leeyahay ama uu la taxan yahay circuit. Continuity test waa test muhiim ah oo aniga xataa aad aan u isticmaalo markii aan rabo inaan ogaado meeshaas in fiiladaas ay fiican tahay ay go'neen ayaa loo isticmaalaa oo yacni conductorka ama danabqaadaha ayaa lagu jeegareeyaa in uu korontadii uu qaadi karo ama meeshaas uu signalkii uu mari karo. Tusaalahan haddaan rabo fiiladan oo aan u isticmaalo signal generatorka inay fiican tahay, waxaan isticmaalayaa meterka aan isticmaalaa, waxaan geynayaa continuity test ayaan geynayaa. LCD-gana waan ifinayaa. Marka sidaa la socotaan fiiladan oo PNC connector, fiilada gudaha ku jirto, dhibacdaas gudaha ku jirto waxay ku xirmaysaa redka, blackgana wuxuu ku xirmayaa qolofta ayuu ku xirmayaa. Marka waxaan sameynayaa si aan u ogaado fiilada halkaas ayaan ku taabanayaa. Kan dhexda ahna fiiladan dhexda ahna waxaan ku taabanayaa halka. Haddii aan maqlo sound, that means continuation ayaa jiro, yacni fiiladaas way shaqaynaysaa. Marka taa waxay ii sheegaysaa meeshaas inay fiiladan ay fiican tahay. Haddaan rabo inaan ogaado midda madowna waxaan ku xirayaa midda madow halkan ayaan ku xirayaa. Tan kalena waxaan ku xirayaa fiilada korkeeda. Taasna waxay ii sheegaysaa in ay fiiladaas ay fiican tahay. Marka sidaas ayaa anigu loo isticmaalaa continuity testiga. Resistorka cabirkiisa cashar dhan ayaan kaga hadalnay. Fiirso casharka oo ku saabsan caabiyaha. Laakiin resistorka wuxuu leeyahay color code ayuu leeyahay sida casharkaas aan ku soo sheego. Marka waxaan soo qaadan doonaa resistor ah 10 kilo ohms ah ayaan soo qaadan doonaa oo kalaradaas leh. Wuxuu leeyahay brown, black iyo orange. Markaad kalaradaas aad ka fiiriso tablekana, brown waa 1, blackna waa 0, orangena waa 3. Marka wuxuu noqonayaa 10 times 1000 ayuu noqonaa, waxayna isku bedelaysaa 10 kilo ohms ama 10,000 ohms. Halkan waxaan ku hayaa resistor badan ayaan ku hayaa oo 10 kilo ohms ah. Sida u jeedaan
waxa uu ku tusayaa colorkiisa. wuxuu colorkiisu yahay brown, black iyo orange. marka around 10,000 ohms ayuu ku dhowaanayaa, laakiin wuxuu qabaa tolerance laho 5%. marka markaan cabirayno resistorka waxaan geenaynaa ohms ayaan geenaynaa, LCD-ga ayaan daaraynaa si aan u aragno. marka waxaan sameynaynaa important ma aha dhinaca aad kaga xirto black iyo madowga, just ku xir. markaa cabirto wuxuuna tusayaa 9.79 kilo ohms. marka aad ayuu ugu dhow yahay 10 kilo ohms maadaama ay jirto 5% tolerance. multimeterka waxaa kaloo isticmaali kartaa inaad ku testgarayso diodeska. marka waxaa geenaysaa meterka, waxaa geenaysaa qaybta ay ku masawiran tahay diodeska ay ku masawiran tahay. commonka waxaa ku xiraysaa cathodeka, anodekana waxaa ku xiraysaa pluska ayaad ku xiraysaa. sida ujeedaan kan waa diodeka waxa uu leeyahay laba meel uu leeyahay. kaas wuxuu ku tilmaamayaa cathodeki, dhinaca bannaan wuxuu ku tilmaamaya anodeka. haddaan rabno inaan cabirno meterka waxaan geenaynaa diodeka calaamadiisa ayaan geenaynaa. waxaan kaloo sameynaynaa LCD-ga ayaan daaraynaa si aan u aragno. marka waxaan sameynaynaa cathodeka waxaan ku xiraynaa negativeka oo blacga oo ka imaanayo meterka, redkana waxaan ku xiraynaa anodeka. markaan cabirnay wuxuu cabiray 0.502 volts. marka diodeka waa uu fiican yahay. inta badan waxaad cabiraysaa 0.2 ilaa 0.6 volts. haddaad ka cabirto diodekaas waa uu fiican yahay. multimeterka waxaa kaloo isticmaali karta capacitance test. mitirada inta badan ma qabaan, laakiin multimeterka aan isticmaalayo waa uu qabaa. marka waxaan sameynaynaa commonka waxaan ku xiraynaa negativeka oo electrolytic capacitorka, positivekan waxaan ku xiraynaa redka ayaan ku xiraynaa oo meterka waxaan geenaynaa meesha ay noo tilmaamayso capacitor. capacitorka sidaa ujeedaan noocan waxa uu yahay electrolytic waaye, waxa uu leeyahay negative iyo plus ayuu leeyahay. negativeka waxaa kuu tilmaamaya calaamadaas cad ayaa kuu tilmaamayso. lugta gaaban ayaa inta badan waxay tahay oo laisla yaqaanaa waxay tahay negativeka, lugta dheer waa positive. haddaan rabno inaan cabirno capacitorka waxaan geenaynaa calaamada oo capacitorka ayaan geenaynaa sidaa ujeedaan. marka LCD-gaan daaraynaa si aan u aragno. marka waxaan sameynaynaa minuska waxaan ku xiraynaa midda blacga ah ayaan ku xiraynaa, pluskana waxaan ku xiraynaa dhinaca pluska ah. marka waxa uu cabiray 936 microfarad. taasna waxay la mid tahay haddaan zeroga ka saarno waxay la mid tahay 935 microfarad ayay la mid tahay. marka capacitorkan qiimihiisa wuxuu ahaa 1000 microfarad oo ahaa, waxaan cabirnay 935 microfarad. marka capacitorka waa u fiican yahay.